qof wanaagaada iyo horumarkaada ku farxayo waxaa jiroon labadii ku dhalay aabbaha iyo hooyada inaad ka badisay rabaan aabbaha hadduu cilmi leeyahay inaad ka cilmi badnaatuu rabaa hadday hooyada sidoo kale cilmi leedahay inaad ka cilmi badiso yacni labada ku dhalay xaasidnimo qalbigooda kuma jirto ama wixii iyaga ka soo haray mar walba faa'iidadaada xataa haddayna ka nixin si unbay u yara dhibaysaa lambar kow inaad noqoto wax raba ma laha wax lambar kow inaad noqoto ku farxayo waa kuwii ku dhalay hooyada marka la yiraahdo cunugaadi baa sidaas gabadhaadi baa ka fiican marka la yiraahdo wiilkaadi baa ka fiican way ku farx aabbo marka la yiraahdo nacas baa tahay wiilkaada ka fiican gabadhaada ka fiican wuu ku farx laakiin dadka kala may ku hooyada ku aabbaha walaalkiina idin ka fiican in la dhaaway dhibaysa iska fiir marka nabiga qisadii markuu sheegay wiilkani Abdullaahi aabihiis wuxuu yiri Umar inaad sheegtay helaabo aad baan ugu farxilaa walaad adiileed masaladii aniga oo Umar bin Khattab aan garan waayay ayuu wiilkiisa yaraa sheegay in la dhahaad bay farx galin leed buu leeyahay laakiin meesha Abu Bakar